waxaan ka hadlaynaa tin macdanaha qaaliga ah soo xiga ee hadda laga raadinayo suuqyada caalamka. Macdantan oo waxyaalo badan oo aan ka hadli doono isla fiidiyowgan aad faa'iidooyin u leh. Sidoo kale qiimaheeda iyo dhaqaalaha ay joogto isla fiidiyowgan aan ku heli doono. Tin waa macdan bir ah, gaar ahaan habsamaysankeeda iyo daatadeedu ay tahay chemical. Waxaana laga soo saaraa maaddo la yiraahdo SN. SN waxaa laga soo saaraa macdan la yiraahdo calcitrate. Markaan halkaa joogno waxaan ogaanaynaa in xaqiiqooyin badan ay bahashan leedahay tin ama dadka qaar u yaqaanaan tin. Tin marka waa maaddo macdan ah, waana maaddo qadiimi ah, muddo dheer la soo isticmaalayay. Waxyaalo badan oo shay ah oo aan isticmaalo oo sida mobilada, kombiyuutarada iyo waxyaalo badan ay ka mid yihiin iyo agabyo kale oo electronic ah way ku jirtaa. Maaddadan waa maaddooyin badan oo macdan ah oo isla aan fiidiyowgan ku sharxi doono ayaa iyaduna la socota. Markaan intaa kaga imaado qodobkaas, markaan aadno midabka tin. Midabka tin waa silver cawl dhalaalaya, waana maaddo jilicsan oo u fudud in la dhalaaliyo ama dab lagu shubo sida biyihii oo kale. Tin waa maaddo macdan ah oo in la helaa ay macquul tahay meelaha volcanic-ga iyo meelaha buuraha leh. Waxayna la socotaa ilaa 7 macdanood oo qaali iyo raqiis isugu jira. Waxaan halkaa ogaanay macdanaha adduunku inay tiro badan yihiin, laakiin aqoon la'aan aysan tiro badan iyo tiro yartoona waxba ka goyn. Tin waa macdan aad muhiim ugu ah warshadaha casriga ah iyo electronics-ka, telephone-iska, kombiyuutarska iyo haddii Ilaahay qadarayo aljibis iyo solar panels. Meelaha kale oo ay muhiimka u tahay way ka sii badan yihiin, ayagana isla halkan ayaan ku sharxi doonaa. Marka la joogo tin waa maaddo macdan ah, waxayna leedahay saameyn badan. Inta badan waxyaalaha loo isticmaalo haddaan soo qaadano ama ay saameynta ku leedahay. Tin isticmaalkeeda marka aan ku sii socono waxyaalo badan oo aan aad macquul uga ahayn dadka xaggooda ayaa ka jira. Sidoo kale waa maaddo bir ah, haddana kiimikooyin xambaarsan. Haddana marka ay ka timaado waxaa la mariyaa birta ayaa lagu daharaa, oo intaan birta ranji la marin ayaa muruq lagu siiyaa si markii la mariyo loo helo inaysan birtaasi daxaloobin ama daxal arag. Oo birta ayay daxalka ka xigsataa ama ka ilaalisaa. Sidoo kale waxaa lagu tiraa daasadaha, gawaarida, sidoo kale waxaa lagu tiraa electronics-ka, maarta iyo adeegyada loo isticmaalayo. Waxyaalo tiro badan ayaa loo isticmaalaa tin waa maaddo macdan ah. Markii la joogo mar walba waxay ku yeelataa saameyn in muddo ah suuqa iyo wax soo saarka. Waxaan halkaa marka ka ogaanaynaa maaddooyinka macdanta oo hadda suuqa wax ka gooya inaysan ahayn 1 iyo 2. Shaygu marka uu badan yahay waxa la raadinayo in la helaana way badan tahay. Sababtoo ah shaygu markuu tiro yar yahay, laakiin markuu shaygu shay walbaaba tiro yar yahay oo shay u tiro yar yahay, laakiin shay walbaaba cimilo gooni ku jiro, adiguna aad raadin badan samaysid, shay ama 2 ama 3 baad ka dul dhacaysaa marka dambe. Sidoo kale haddaad khibrad haysatid, waqti badan ayadoo aan kugu qaadan ayaad gaari kartaa. Dhulka ayaad cimiladiisa saameyn kartaa, taasna waxay ku siin kartaa hagis fiican. Anigu 9 sano oo aan macdanta research ku hayay
muddo 3 sano oo aan macdanta researchkeeda sii xoojiyey muddo sanada oo aan miidiyaha wax ku soo bandhigayay marar badan intaan researches isku keenay waxaan ogaaday wax badan oo iga maqnaa maalin kasta oo waagu bariyo ama gabalku dhaco research cusub baan sameeyaa wax cusub baan ogaadaa taasina waxay iga dhigaysaa inaan mustaqbalka awood u helo inaan ka gaaro heer maalin walba maalinta ka dambaysa waxaan aqoonsadaa inaanan aqoon badan oo macdan lahayn xagga aan maalinta ka horeysay aan aaminsanaa ilaa bilowgeygii inaan aqoon fiican haysto laakiin hadda waxaan isleeyahay aqoontii baa iga soo yaraanaysa sababtoo ah waxa iga soo horbaxaya ayaa aad u tiro badan marka taasaa runta ii sheegaysa iyo xaqiiqada dhabta ah ee jirta waaqica marka aad fahantid waa marka aad kaliya oo aad horumar gaari kartid aad hadalkaaguna uu saxmi karo anigu waxaan ogaaday oo xaqiijiyey waxbarasho la'aan waxba ma qaban kartid qalab la'aan waxba ma bedeli kartid dadaal la'aan waxba kuma hirgelayaan saddexdaas oo aad dumiso waa noloshaada oo aad dumiso kow aqoon baa lambar 1 ah 2 qalab ah 3 waxa shaqa ficil inaad bedeshid baa kow aqoontu waxay rabtaa aqoontu waqti bay rabtaa jeeb bay rabtaa go'aan bay rabtaa adkaysi bay rabtaa inaad fahantid bay rabtaa inaad ku adkaysatid bay rabtaa inaad waqti badan aad aqoon inaadan helayn aad u aragtid aad u samri kartid bay rabtaa in hagid ayraayra qaadatid bay rabtaa inaad meesha ku habboon hadhowdii aad aadid bay rabtaa inaad ka faa'iidaysatid bay rabtaa aqoontu marka waxay joogtaa base adag anigu halkan waxyaalaha idinku hayo way badan yihiin haddaan ka imaado taas maalmahan oo dhan waxaan idin sharaxayaa waa maado aqoon oo macdan ah haddana waa maado bahwadaag ah shay badan oo bahwadaag ah ayaan haba mid idin soo qaadanaya shay walba maxaan u soo qaadanayaa sababtu waxay tahay inaad ogaataan xaqiiqada shaygan si aad u raadin kartaan berri haddeertan time xagee laga helaa time meel leh pegmatite iyo garanate iyo quartz sidoo kale waxaa laga heli karaa dhul volcanic ah sababta aan qodobkaas soo ogaanayno waa inaan xaqiiqada dhabta ogaano shaygan haddii la raadiyo xagee laga raadinaya halkaas ayaa laga dooni doonaa iyay bahwadaag yihiin inta badan la isla heli karaa hadda ayaa iyagana ogaanaynaa lithium tantalum tourmaline quartz feldspar iyo tungsten macdanahaas tungsten hadda macdan aan horay afkayga ugu soo qaatay maba ahanba marka aan joogno meeshan waxaan ogaanaynaa macdantan haddana bahwadaagta ay la socotay haddii ereygu ku dhaafo dib ayaad ugu ceshan kartaa sidoo kale fiidiyoyadii hore ayaad booqan kartaa waxaa ku jirta aqoon badan waxaa laga yaabaa aqoonta aad raadinaysid ama su-aasha ay weydiin lahayd inay ku jirto fiidiyoyada aad soo dulmadhay ayaga ayaa hagid kugu filanaan karaa mararka qaarkood waxyaalo yaryar haddaad rabtid haddaad wax isku geegeysatid mararka qaar way ku caawin karaan ma jeclaan lahayd dalalka ugu badan inaan kuu sheego ee laga soo saaro dalalka ugu badan ee laga soo saaro waxaa ka mid ah China Myanmar DR Congo Indonesia Beirut Rwanda Nigeria qiyaasta markaan intaa isu keeno barnaamijkan waxaan iskula fahnay qiimaheeda ayaan iskula fahmaynaa baashan time halkii tan wuxuu joogaa qiimo gaaraya 45,000 ilaa 55,000 oo u dhigma kiiladii $5 iyo bar ilaa $4 iyo bar qiyaas fiican ayaan idin siiyey halkan marka xog badan ayaa ka hesheen
dabcan saan filayo barnaamijkan waxaa laydinka codsanayaa inaad subscribe garaysaan ciddii aan subscribe garayn ee inala joogta like garaysaan cid kasta share garaysaan cid kasta aad sidoo kale commentiga aad igula soo hadli kartaan wixii aragtidiina ama aad soo wici kartaan telefoonka hoos baan idin dhigayaa waxaa intaa dheer waxaa jira systemkii ardayda diiwaangelinta macdanta barashadeeda sidoo kale waxaa jira systemkii macdan baarista ee online-ka ahaa sidoo kale waxaa inoo jira buuggii macdanta ee 58 page oon hore u haynay sidoo kale waxaa inoo dhow buugga dahabka kaliya quseeya oo isaguna waxaa ka qiimo badnaan doona aqoonta dahabkana aan kusoo koobi doono ayaa gabagaba jooga mar walba waan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ila socotaan xilli walba aniguna waxaan idin ballan qaadayaa inaan maalin kasta sidaan oo kale shay cusub idinkala soo hadlo iyo aqoon cusub mar walba aan isgarabsano ama aan isku xirnaano ama aan wax isu soo bandhigno waa mar kasta oo inagoo dhan aynu gaarayno hadaf iyo horumarka aan rabno aad baad ugu mahadsantihiin la socodkiina aad baad ugu mahadsantihiin dhiirigelintiina marar badan